war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in cudurka coronavirus uu ku faafay gudaha dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. ilaa 4 kiis oo cusub ayay shaacisay wasaaradda. waxay wasaaraddu xaqiijisay maanta 4 xaaladood oo cusub oo la xiriira caabuqa COVID-19, taasoo tirada guud ahaan xaaladda caabuqa COVID-19 ka dhigaysa 12 kiis, ayaa lagu yiri warkan oo goodhow ka soo baxay wasaaradda caafimaadka. qoraalka wasaaradda waxaa lagu sheegay bulshada aysan ka digtoonayn cudurka, taasoo kaliftay in si fudud ay isku qaadsiiyaan. waxay wasaaraddu caddaynaysaa in uu bilowday faafitaanka cudurka ee bulshada dhexdeeda. 4 ruux ee maanta laga helay cudurka coronavirus ee wasaaraddu shaacisay dhammaantooda waxaa lagu sheegay war-saxaafadeed inaysan dalka meelna uga bixin. sidoo kale qoraalka wasaaradda ayaa lagu xaqiijiyey in 2 ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee wasaaraddu ka mid yihiin dadka laga helay xanuunkani. waxaa ka mid ah dadka laga helay cudurka 2 sargaal oo ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka, taasoo qasab ka dhigaysa dhammaan dadka la shaqaynaya ama xiriirka la inay karantiil galaan inta laga xaqiijinayo baaritaankooda, ayaa lagu yiri qoraalka. sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxay qoraalka ku xaqiijisay in qofkii ugu horeeyay cudurka coronavirus uu u geeriyooda gudaha dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kaasoo aan dalka meelna uga bixin. waxaa sidoo kale geeriyooday allaha u naxariistee xaaladii ugu horeysay ee la xiriirta caabuqa COVID-19 nin Soomaali ah oo 58 jir ah, kaasoo noqonaya dhimashadii ugu horeysay ee waddanka gudihiisii, ayaa lagu yiri qoraalka. wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay inay ku mashquulsan tahay raadinta dadka ay xiriirka la sameynayaan dadka cusub ee laga helay cudurka, iyagoo ku sugan gudaha dalka oo aan saameyn wax safara dibadda aan la yeelan amba aan dibadda u bixin. bulshada Soomaaliyeed ayaa iyagu jalaq u siinayna fariimaha caafimaadka ay u dirayaan si ay iskaga ilaaliyaan, uga tugtoonaadaan, ugana hortagaan. waxaad arkaysaa bulshadii oo isdhex yaacaya, ganacsigii oo socda, goobaha maqaaxidaha fadhi ku dirirka oo lagu shaahaynayo oo dadku aad u dhooman yihiin, iyadoo dowladda federaalku ay xakamaysay oo ay joojisay in gudaha Soomaaliya ay diyaaradaha kuwa caalamiga iyo kuwa gudahaba ay isku gooshaan. inkastoo gawaarida ka kala shaqeeya gobolladu iyagu si caadi ah u shaqaynayaan. dowladaha jaarka ah sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti ayaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodkii oo bandow la geliyey, laakiin Soomaaliya iyadu uma muuqato, oo dowladda federaalkuna iyadu arrintaasi oo bulshadu in ay waajib ka saaran tahay in ay xakamayso oo ay joojiso oo ku xirto qof walbaba gurigiisa, iyaduna ma aysan samayn. wasaaradda waxay bulshada Soomaaliyeed mar kale u adkeynaysaa inay guryahooda ku ekaadaan, kana taxadaraan caafimaadkooda iyo badqabkooda. fadlan inagala qayb qaata xakamaynta cudurka, raaca tilmaamaha caafimaadka sida joogtada ah idinla wadaagaysa wasaaradda caafimaadka, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ee ka soo baxay maanta.